بسم الله الرحمن الرحيم. dhawaada walaalayaal kanaalkana cali kashmir maanta waxaan idin hayaa qiso aad u cajiib ah oo cibro qaadasho mudan qisadaas oo ay dhex martay Umar bin Khattab radiyallahu anhu iyo nin baa u yimid Umar bin Khattab radiyallahu anhu ninka wuxuu watay wiil yar Umar ayaa yiri waxaan arkay maanta waxyaab leh waligay ma arag nin cunugiisa saan ugu eg yahay markaasuu yiri ninkii Umarow tahay wiilkan inay hooyadii ay dhashay ayadoo meed ah markaasuu Umar radiyallahu anhu intuu fadhiga bedel ku yiri iga sheekay sidee u dhashay ayadoo meed ah ninkii wuxuu yiri wiilkan isagoo caloosha hooyadiis ku jira ayaa safar isoo galay markaasay hooyadii tiri halkeen nooga tagaysaa anigoo xaamilo ah oo dhali raba haddaba markaan albaabka guriga ka baxay ayaan caloosheeda gacanta saaray oo aan ku iri ilaahow adigaan kugu amaanaystay cunugayga intaas kadib waxaan sii gudagalay safarkaygii haddaba markaan safarkii ka soo noqday ayaan imid gurigii oo xiran kadib dariskii ayaa ii sheegay in xaaskaygii dhimatay dariskii ayaa igu yiri sabar iyo iimaan ilaaha ka siiyo kadib waxay ii kaxeeyeen gurigooda waxayna isiiyeen qadadii anigoo cunayo ayaa waxaan arkay qiiq meel ka baxayo kolkaas ayaan dadkii weydiiyey waxaana ii sheegeen in qiiqaas yahay qabrigii xaaskayga ayagoo waliba ii sheegay maalintii la aasay ilaa iyo maanta inuu qiiqaas ka baxayo qabrigeeda markaas ayaan ku iri wallahi inaan dadka oo dhan uga aqoon badanahay inay ahayd qof taqiyad ah saalixad ah soom badan oo wixii xun reebta wixiisanna dadka farta kolkaas ayaan dadkii ku iri soo baxa oo iraaca aan soo arkay waan soo baxnay markaan qabrigii imaanay ayaan ku bilownay inaan qodno markaan qodnay mise waxaan aragnay xaaskii oo meyd ah oo fadhisa iyo wiilkii oo ag fadhiya kadib ayaan maqlay cod ileh kii amaanada ilaahay u dhiibtow qaado amaanadaada culimada waxay yiraahdeen hadduu dhihi lahaa ilaahow waxaan kugu amaanaystay cunugayga iyo hooyadiis ayadoo nool buu u imaan lahaa laakiin qadarka Allah ayaa ahaa inuusan sidaa dhihin oo waqtigeedii ayaa intaa ku ekaa qisadeena halaas ayay ku eg tahay haday tahay markaa kuugu horeyso fadlan subscribe noo saar si aan dhiirigelintaada u helo